dhaqankaaga iyo diintaadii aad ku dhaysa midgaan qof nasabad leh guurso oo asal raac damba leh muxuu kaaga nasabsan taas waaba midgaan muxuu iga nasabad liidan waaye waaba midgaan anna nasaba ahay dadka waxay ku kala fadli badnaa karaan qof walba qofku Ilaahay uga dhow yahay inta ka soo hartay waxa weeye waxyaalo aan ku jirin miisaanka islaamka ka hortagay waa maqaaraas oo dhan adduunyada haddaad ka raadsid ma ka helaysid balaastiga lagu sameeyaa balaastiga lagu siiyaa hadda kan aad wadateed waa balaastig kan waa maqaar farsamadaas ay ugu jirto yaxar kasta oo naqdo maxaa ku soo heri suumankii bal fiiri waa maqaarkayga dalkayga hooyo oo isku camirayo maxaa kugu soo dhacaya marka aad maqasho midgaan tumaal والله قف نوع قوني وما أركاني دتك هذا بدنا اللي يراهذا ومتجئي ودتك شقية ودتك كبها طلا برها طلا محام كنا فرسمية قانك مركا دا سيفي رسوي نقول إنسان إن لقوا عينا يشقدودي معناها طمالك مجا وحن اللي يراها سيف في عن برمال وايهر لكن دتك وحورها طمال مركا وحن ملاها أري أو طلياني إنه أساسا أمريكا. كان أمر طمال وحوها ومسلم. متجانك وحال يحشى وقارتي ومعنا هلا لقلاي هشادي لقلا حوننا لي أنا كدر جنين. هاي marka waana ka dhergay waana qaataasi inkastoo dadka Soomaaliyeed dhaqankoodu uu ku saleysan yahay qabiil haddana dalka waxa ka jira faquuq dhinaca qabiilka ah taasoo keentay dadka wax soo saar kale in lagu tilmaamo tumaal midgaan iyo magacyo kale oo ay ku tilmaamayaan inaysan nasab ahayn macnaha anagu boqolkiiba boqol ku faraxsanahay shaqada aanay horta macnaha waxaas anaga dhig jalaq uma siin saastay tahay bulshada dhinac ka haynaa nolosheeri aan haynaa birti wax lagu sameeyo beeraha lagu filan sameeynaa birti wax lagu gowracaan sameeynaa birti hilibka lagu gadaan sameeynaa raashinkii wixii lagu kareen sameeynaa xoolihii qabaaladii wixii lagu shubay waa weynaan aan sameeynaa miisaamad wax lagu miisaaman sameeynaa bulshada dhinac weyn aan ka haynaa boqolkiiba boqol anaga hatta boqolkiiba 90 ma boqolkiiba boqol waa inayna meeshaan waxaan ku sameeynaa abay farsamada kobaha hidaha iyo dhaqanka boorsooyinka rag iyo dumarba horta waxa waa adduunyada wax kasta waa la arkaa ninka oo shaqo fiican sameynaa ma jeedaa shaqo xun magac xun baa loo bixiyaa horta waa la ogyahay marka anaga shaqadan hidii iyo dhaqan ay noo tahay kiina caayo iyo kiina caaninbo maanta maasha Allah anaga ilmahaani aan ku korsanaa ijaarkaani aan ku baxsanaa dharkaani aan ku gadanaa bajiidaani aan ku cunnaa kii caayan ay dhoono abaawr bada hadaan u tago oo dhaho war ilmihii iga baahan wax isii ma isiina ninkaas ma isiina ninkaas waa maya marka ana xoogeeda dhaansado oo xoogeega baxsado farsamadeeda muujiyaan jecelahay baay wax alo waxay leedahay ay dhoono wax u muuqaas يوسف حيلة جمعالي ووزير كحجانك وزارة دينتي وقافتي حكومة الصومالية وحاو وحبرشقي إلا عشان بقولي اللي إحنا الأرضي وكررتي دادك الصوماليدو أي تكوران مقعيدة بدنا يوبحيين بسم الله الرحمن الرحيم أرد أرنكاس وأرن إن مدى سو سعودو سو جيتمايي لاسك كشخصي أهان أنيقا أما كقف أهان موقف قارة أيان كقاتي maadaama ka mid ahay reeraha amba beelaha lagu tilmaamo magacaas haddana mawaaqif gaar ah ama go'aan gaar ah aan ka gaaro ah
waxaan ku sameeyey daraasadan waxaan ku sameeyey waxaan say ku xalsami karaan adiga haddaa joogtaa yuusuf shalan inaa joogay maalinta ka horreysay nimaa joogay ka hor nimaa joogay maxaa ku xallin kartaa rumaantii la tashi badan iyo maskaxdayna iyo waafajinta ilaahay iyo fikrad badan kadib waxaan wada tashanay oon go-aan wada gaarnay waan u tegay oon gacan weyn maaragtay iska siinay wasiiradda haweenka iyo horumarinta xuquuqinsaanka Marwo Khadiija Maxamed Diiri iyo aniga waxaan go'aansanay mar walba hadaa cabato mar walba waa la yeelay mar walba maaragtay saasaan ku dhacay waxaa ka wanaagsan inaad go'aan qaadato Soomaaliya waa wadanka kaliya ee dunida lagu tilmaamay in dadkiisu ay ka midaysan yihiin diinta, dhaqanka, luqadda, midabka iyo hidaha. Haddana Soomaalidu waxay dhaqan ka dhigatay isfaquuq dhinaca jinsiyadda ah. Waa Soomaalidu waxyaabaha ay ku dhaqmaan waxaa kamid ah 6 shay amba maaragtay 7 shay baan 7 shay Soomaalidu way ogoshaan in ceelka la cabo oo ceelka ma diidano Soomaalidu way ogoshaan in tubta la maro wadada Soomaalidu way ogoshaan in maaragtay dhulka la tabcado oo beera iyo maaragtay soo saar lagu sameeyo Soomaalidu way ogoshaan maaragtay in xoolaha iyo maaragtay sumad la isku wada dhigto Soomaalidu way ogoshaan in megta la isla bixiyo qofkii dib ku dhaco in la yiraahdo loo kaalmeeyo qofkii dib loo geystana dibkiisi maaragtay cid u geysato loo raadiyo Soomaaliduna dad xun ma ah dadkuna hadii la propaganda amba ay naftikooda la colaadiyo dib badan ka iimaan karo horta waxaan isu xijin dad ma nahay horta inaga naftigeenu ma nahay nasabiye dadkooda dhowraya oo dhaqankooda dhowraya oo sharaftooda dhowraya oo dilka iska ilaalinay in alla inta xumeed baynu qaadanay maxaynu halka uga hadlaynaa dilkii baynu xalaalaysanay dhici baynu xalaalaysanay dulmigii baynu xalaalaysanay waxaad arkaysaa kacas waxay ku leeyihiin casow كايندا على واحد إندوري كسنقدر واحد سنقوري كبورة واحد بورني كلو عليه لقلو كيلي كم غير واحد إليهين هذا فورت ما وين كمذو واحد الواد مذو ده كعس واحد الواد أصلاً واحد إلهي وبحياء أيين النبت قلني أدنى واحد دوني ضد كان إيه النبت وحمد نبت قلني يعني وصدقون وأنك إلا وصول مرة إلا مرة ضد كان وضد آد وإنجكن وإنججين ما لها اللبين ودد إنججين أو فكرة دير دد كان صوماليات ويسكمت ويسكدن ووراها لكن هذا وحيالها إسبدل مركا في ريسيت تكوركا دد كان نصبيد اللي يراهض معركتي لما يقول سنكر وحيالها إسبدل وحاكم إذا قضياش دقن كأي كينين هذا دوب كصوماليات وحاكم إذا دولة الصومالية وحلو سميه قاب 4.5 كاس أولو سميه واجي عرتا 4.5 markii la sameeyay micnaheedu waxay la mid tahay 0.5 waxa lagu aruuriyay dadka others la isku yiraahdo oo nasabiyada iyo dhanka kale loo hubiyay la yiraahdo dadkan lama mid ma aha oo afar beelo waaweyn iyo beel half ah in loo sameeyay waxaan ognahay ummadda Soomaaliyeed ummad wada siman inay yihiin dad muslim ah oo isku diin isku dhaqan oo aan la kala sareyn haba yaraatee wallahi midgaan hada Soomaalinahay وأركت الدولة 4.5 على وقير صدا واي وقعد نجين أضياش النجوا وينا أما دتك النجوا هالري 0.5 واي وقعد نجين ماشي سو مو كجرته وحن جران لا أنا هاي لكن كان إنها مد عدو هديهنا وناكسن لكن كانوا عدو لبضوا كلا لبضتكوا إسسارة هدوه وجيرني أريجاني لكن محرن شرني أدري محرن قبيضاني وهدي لكن كنا وكان هذا أي نقبنا كان ما ينقعه بيان ترى مركاو حويه لكن كان وري مقلف سنة واللي سكت ديري شيء واللي سباب إنشري ورهير عاو سوق اللي لقى شيء واللي يستيري شيء مركا أضياشة علمي بعلقو دافيا كومات دافيا سنة إنه استديمنو
cilmigu adduunku ku dhaafay odayaasha ku dhaafay walaalnimadiina adkaysta dadnimadiina adkaysta calankiina adkaysta madaxdiina adeeca ummad noqda tacliintiina aamina dadnimo yeesha oo dhaafa odayaashan maxay idin hor dhigay dhiban waaye dhoof waaye 70 jir baanay dhibanna waaye dhoofna waaye Soomaalidu waa dad qudha sawraca sinjigiya afkaba diin kala soocantiyo soodina kala celinayo malaha waxay kala siitaan abwaanow ila soco midnimadooda u sudan sumada calankoo u xidhan midnimadooda u sudan sumada calankoo u xidhan isfaquuqa ku salaysan jinsiga ee dadka Soomaaliyeed dhexdooda ka jira ma ahan mid ku eg midgaan iyo tumaal waxa madax xanuuji buu waayay walaali horta aniga waxaan aqaanaa farsamadiisi markii af Soomaaliga oo lagu sheego alindi la yiraahdaa dar Soomaali kor ahaan waa la yiraahdaa anigoo dar Soomaali sameeyo oo ah dharka adduunka ugu qurux badan ugu adkaysi badan oo aan isleeyahay Soomaali oo ka nasabsan maba jiraba adaa dadka ugu qurux badan adaa ugu farsamo fiican haddana yaxaraatahay mashkiliya madaxa qacligasi xarkunaqa Suufi Xaaji Shiiqo waa fanaan Soomaaliyeed waxa uu ka mid yahay dadka wax soo saar kale ee la faquuqo dhididkiisninkii oo cuna lee dhargaaye dheef asala dhamaahin ee dhaqdhaqaaq suubiya dhalinyaroy dhageysta dhulka dhaqaalaysa dhib loo soo maro waaye dhaxalkaagiya dhurwaay ka dhacaaye dhimashaa karoon ma dhaafi karne dhaqdhaqaaq suubi والله ودني نمدا الصوماليات جعلك عن أخوي أنا هرت ما يجي تترمايو صومال نمدي وجرتها ما كبحي كري هدين كبحنا مال دانتو أو كفي عنون آذي ما أجيدي dhaawac waxay igu geysatay baarlamaankii waa ku yarahay agaasimayaashii yani waxa ahay kuwii agaasimayaashii guud dowladda xaggeeda saraakiishii sarsare kulliga waa hooseeya dadka qofka walaalkii takooraya ee sinjiga weliba ku tarkooraya meel baa la iska aabaaray yaroo sahlan hebel wuxuu yahay iyo waa maartay waxay abaarayaan inay sinjigii ka saaraan Soomaalinimadii in laga saaro midgaan baad ana la hadli kartaa tumaal baad ana ma la hadli kartaa ugaar badan baan lahayn biciid baan lahayn goodir baan lahayn sagaaran lahayn ugaar baan lahayn deeraan lahayn midna miyaad ka aragtay xaggaas iyo waxay u kaceen Afrikada kale mid kama arkaysid marka dadka ay ugaadhi ka carartay yaa miyaad dad daryeelaya wax weyn oo isu qabaan Soomaalidu erayada ay u isticmaasho jinsi faquuqa waxaa ka mid ah waxaa taqaanid guurso waxaa taqaanid ha ku dhale faadumo waxa ay ka mid tahay dadka isku tilmaama nasabka dhaqankaaga iyo diintaadii aad ku dhahaysa midgaan qof nasabad leh guurso oo asal raac damba leh muxuu kaaga nasabsan taas waaba midgaan muxuu iga nasabad liidan waaye waaba midgaan anna nasaba ahay
تميل من نكاحها مرة تميل من نكاحها وإلهي أجيهي هالغير أو مال أنك تتري مجرته تميل من ضد يعني يعني مجرس عن حتى لعقت نكاح إيك إيدي وي وروح ما يوير مركز ومايا ماما هدي بقى أني ما عرفت إيه اللي مهر سنايو محالي تمال باني وحل إيه كلام إنك فاشحون وح جور ساي لهن مكسر أنا إيه وخروح بديني وخلاص أوتوماتيك اللي يعني أنت لما ضايع اسكو كينبا اسكو فيريبا يا تمال نقا يا بون نقا يا يحر نقا هذا ترى تذكر غير هذا ترى سنجبو قبل المقصر سوا قبل ما دبانا أما يعني مارتي عين كاسة أنا هذا وفي عن تايبان كلها لكن هذا بس ما ينوي سنت قرآن هاي دين قرآن هاي وحنا ضد قرآن هاي ضل قرآن هاي نشي كلام مجروح حتى علماء ده النهرة أذبر ولا ليريا ويتذكروا وعديين لكنه ما ينشيك qofkii diiniga ahaa ee diinta dadka ku wacdiyay ayaan sheegayn qofkii abwaanka ayaan sheegayn islaamka wuxuu ka hor yimiday oo la maaragtay aad iyo aad maaragtay uga hor yimiday in wax la isaga sheego midab ama wax la isaga sheego hayb ama wax la isaga sheego shaqo xirfad oo qof uu haysto aad buu maaragtay uga soo horjeestay inagu marka samil jaahiligi sidaan markii ay wadankeena looga dhaqmo jiray samil jaahiliga haye markii ama diintu ciriiriga ahayd ama ilbaxnimadu ciriiriga ahayd xilligaas lagu dhaqmo jiray hadda wadankeena wax midgaan la yiraahdo ma jiraan laakiin wax midgaan la yiraahdo qof islaam diintiisa qof islaam agtiisa midgaan ma taalo ma u diidanin inay dad islaam yihiin inay dad waxtar leeyihiin inay bulshada kamid yihiin inay dadka kamida oo Soomaaliya inay yihiin ma u diidanin haddana dhaqankii Soomaaliyeed baa noo diidaya inaan midgaan guursado leeyahay marka tumaalehe waaye tumaalki waaye dacwadii haday naqato dacwadii waana lan kulliida qabiilaha waana lan liida marka si kasto ay naqataba anugu waa sabarnaa sabarna dadka kula shaqaysanaa ma wax kale tama jiraan dadka kale ma ku ogolaadaan gabartooda inaad gursato ama wiilkaaga ku darto ma ogola maxaa keena islaamka marka liidaas in lagu dhaho tumaala tahay waa wax soo jireen oo maaragtay ilaa iyo markaas maaragtay nala ku soo hayay wax laga ilbaxa ma ahan haddana wixii hal maalin nalan kama maarmo waa aragtay biyaha ceelka birtaan anu kaabaynaa lagu qodaa badarka waa lagu soo saaraa xoolihii waa lagu qalaa meelna daqiiqad nalan kama maarmo waana naloo necab yahay dadka waxaa isweydiin mudan haybsooca ku dhisan faquuqa ee Soomaalidu ay ku dhaqanto isla markaana loo tiriyo in dhaqanka Soomaalida uu la soo facjirsaday sida ay qabaan dad badani ayaa su'aasha ka taagan waxa ay tahay sidee looga bixi karaa runtii anaga qofna qof inuu kaliita ma aaminsanin qof walba waxaan aaminsanahay inuu xuquuq leeyahay xuquuqda ha noqoto waxbarasho ha noqoto caafimaad ha noqoto shaqo waxa kasta inaan simanahay dadka aad ugu doodaana kamid ahay anigu oo human rights ahaan iyo minority inaan dib loo baabi'in marka runtii ani ma aaminsani inay waxba gooniye naga yihiin wallahi arintaasi qof kasto Soomaali oo aqli leh ama aqoon leh waa inuu u ololeeyaa oo ama wax ka qoraa ama oo mataqaanay qalabka warbaahinta uu adeegsadaa internetka iyo waxyaalaha hadda cusub dadka lagu wacyigeliyo joornaalada qalabka warbaahinta fadhiyada la isugu yimaado meel kasta in dadka aqoon-yahanada ay ka hadlaan oo arinta sharxaan inuu dadkan bini aadam yihiin oo dadkan ay siman yihiin waxay is dheer yihiin jirin
waxa la sheegay ay tahay qusacbilaad iyo khuraafaad iyo waxaan waxba ka jirin oo cilmi ku salaysnayn iyo xaqiiqo ku salaysan inay tahay inay sharxaan u istaagaan dadka aqoon-yahanada in manhajka xataa waxbarashada lagu soo daro marka aniga inaan arrinkaas iyo magacaas ka dagaalamo amba aan difaac ka galo amba aan eed maaragtay ka dhigo waxaan ka doorbidnaa aniga wasiiradda haweenka dadka in wax la baro sanadkan 560 ardayn ku guuleysanay sanadka dambe waxaan ku guuleysanaan arkaynaa bulshadu waa iska daba imaanay hadii tacliim timaado oo ruux maaragtay oo wax soo barto oo qalbi soo dhismo oo iskuulaad ka yimaado oo jaamacadaha tago wixii waa iska yaraanahay anigu marka go'aan ka qaadana wuxuu yahay in dadkeena aan wax barno ninka geela qaaday reera gabagabeeyey guri nabaddu ay taal gocandhada ku daadshaan geesi ugu yeedhna isla weyn guniya baar ama gara ama ha garan hadal malagii gala idhi masaajid markii la galay intaan guntanuhu aqimin qabiil baad ku goodidaanoo gacmaha laysku fiiqayaa isla weyn ama garo ama ha garan sancada kii garan lahaa adduunyada gaadhi lahaa gantaala samayn lahaa gabay bay ugu yeedhayaan isla weyn ama garo ama ha garan hadal malagii gala idhi baa ku jirtay waxa weeye midgaan qofka aan islinta islaamka ku jirin baa midgaan